ننبا وحالي نن عاقلها طلبتنا نن هذا طلبضان بوها ننبا كل كيري ورنك وحكم الموي ديسين وحن معنا ننبا كل بكتر هذا أنا نك على إيجيو وأطق بالي مش هستوجاي نك ويبدو وحي النية وشدير بانكوس ومرين نن عاقل أنا والو وقوشة صدح مثلا كهرباء أنا إيشكت صدح يعني كهرباء مركا كوبات إنا حول يالان يا إنك لأدونك أنت نشوف إيشك marka labaadna goortaan dhiman ii sheeg la ii imani ii sheeg marka saddexaad aakhire in la jannayni in la cadaabina ii sheeg bi saddexda mas'alo yani oo ka rabaabi ninkii caaqilka ismaba dhibin wuxuu yiri jidheer haddaad soo martay su'aal muhiim inaad weydiisay ahayd bi saddex mas'alo basiid aad weydiisay bi on macna walahayn bad weydiisay bi kolka waan kaaga jawaabi bi xagga xoolaha saad u kala horreysisaan ana kugu kala horreysiin xagga xoolaha min weynadaada iyo wiilkaaga curad haday ka xoolo jeclaadaan xoolo waad yeelan biir hadii in kastaba aad dadaashid aad go'ajeena qaarsatid kabaha suunka aad u adkaysatid aad waligaaba jeelaatid gooriya galab carrow aad haatid min weynadaada iyo wiilkaaga curad hadaad adigu ka leex jecla badnaato qorrog buuxo caana oo ka wala inuu saymada ka hor oolaynin bi cayr baa ku huran bi hadaad labada ka leex jecla badnaato من وين هذا ولا قرن يا وان ولا إسلامته نكو جورج كو تأجوين بهيسة بدأ أجوين بمن وين الله رها وهذا ما هذا الكباح هيان مية بالتشويه مقالة مكشف قيست يوم ما لعج حوالها السقوط صدر يو محوها بقوله سكشف قيست وحسب مترين حوالا نقول ولا يو واحد بعديها كسر أو كل كوحية لبضة هذا تكلم حتى على بضاته عير باقورن هذا يو كان قبطان هنتبع يالن وحاجة حوالها حاجة dhimashada dadkii kula midka ahaa ee kula ayniga ahaa markii la dhex galo hebel wuu dhintay hebel sano horu dhintay hebel waa laga soo qeyliyay hebel intaas oo sano ma kicin kolkii dadkii kula ayniga ahaa la dhex galo waa lagu la joogaa diyaar garow oo safka hore galbi hada waa sida qaalibka ruux isagoo ayniga dhamaanin isagoo dhiman kara laakiin qaalibku ka hadlaya aynigaaga markii la dhex galo waa lagu la joogaa diyaar garowbiyo waa xagga dhimashada xagga aakhira waxaad mudani shirka markaad ku soo baxdo heerkaaga markaad ku soo baxdo majlisyada la joogo markaad timaado iyo meelaha mujtamacu joogo haddii lagugu farxo oo hanqalka lagula raaco oo homaalka lagu siiyo oo lagu dhoola cadeeyo oo meel lagu baneeyo oo ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo markaad ku soo baxdo ay farxaan oo lagugu soo shiro ehlu jannah taybi ehlu jannah oo xaajada aad gashay khayr laga fasho Allah warna khayr qaba xaajada ku jiro hebel kulba xaajada haduu ku jiro wax wanaag oo wanaag ma laga filan loo ehlu jannah taybi hadaad ka lidkii noqoto oo meelahaad ku soo baxdo iyo meesha xaajada ku jirto iyo shirka iyo majliska iyo meelahaad ku soo baxdo hadii laga naxo oo hoosta laga habaaro oo ish lagu maroojiyo oo lagu baneen waayo oo meesha markaad ka tato lagu farxo ilaahay baa na dhaafiyay oo xaajadaad ku jirto khayr laga filan waayo oo islaanta iyo carruurta markaad ku soo baxdo kala carraan tolo maxay dhihi doonaa ay dhahaan intaad nafbaxaysa naarta ka xigtay intaad nafbaxayso yaa naarta ka xigtay hadaad adigu xujo uga jeeday iyo hadaad cilmi kororsi ahaydba saddexduba waa midka hadii wiilkaaga iyo weynadaada aad ka ay ka la xijala badnaadaan xoolaad yeelan hadaad ka la xijala badnaatana cayr baa ku huran aynigaaga markii la dhex galay waa lagu la joogaa ee cibaadayso oo safka hore gal aakharana xantaada la soco waxaad mudani xantaada adduunka la soco xan wanaagsan iyo ruux khayr qaba hadii lagu yaqaan ehlu khayr baa tahay hadii muxuu ahaa ruux khayr aan lahayn lagu yaqaanana ehlu shar baa tahay biyiri